Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Soo dhawaada asxaabta. Muuqaalka maanta waxaan ugu hadli doonaa insha Allah shimbiro aad u qurux badan noocoodana aadan horay u arkin. Haddaba intaan guda galin muuqaalka, haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir oo janalka subscribe dheh, sababtoo ah dhiirigelin ayay inoo noqonaysaa. Muuqaalkana like dheh. Mahadsanid. Haddana aan guda galna muuqaalkeena xiisaha badan. Shimbirka lagu magacaabo fisaanka dahabiga waa shimbir aadan noociisa horay u arkin, wuxuuna asalkiisa hore kasoo jeedaa jeenaha. Dhammaantii waa shimbir aad u qurux badan, waana mid kalarkiisa uu yahay dahabi, qaar ka mid ah jirkiisuna waa mid gaduud ah. Waana shimbir soo jiidasho leh marka loo eego midabada kala duwan ee jirkiisa. Shimbirka Wilson. Shimbirkani quruxdiisa kuma eko midabka jirkiisa, balse waa mid leh seen u muuqata sida shaarbihii oo kale. Markaan eegno midabkiisa, madaxiisa dhanka hore waa buluug, dhabarkiisa korena waa mid guduud ah, wuxuuna u muuqdaa madaxiisa iyo dhabarkiisa inta u dhexeysana waa mid jaallo ah. Lugihiisana waa kuwa u muuqda midabka buluuga, laakiin markaan eegno dhediga, qaar ka mid ah jirkeedu waa bunni, halka madaxeedu uu yahay mid buluug ah, balse iyadu ma lahan seenta u muuqata shaarbaha. Shimbirka baqbaqaaq. Shimbirkani wuxuu ku nool yahay webiga Atlantic, waana mid ugaarsada xayawaanada ku nool badda sida malayga iyo xayawaanada kale ee ku nool badda. Shimbirkani waxyaabaha ku qurxan yahay waxaa ka mid ah midabada kala duwan ee afkiisa hore ee wejiga, waana shimbir qaab dhismeedkiisa uu qurxan yahay, iyo midabka qurxan ee wejigiisa hore. Shimbirka Boto. Shimbirkani waa shimbirka ugu soo jiidashada badan ee Latin America, waxaana si qaas ah loogu yaqaanaa shimbirkii ruuxaanta. Shimbirkani waxyaabuhu kugu soo jiidanayo waxaa ka mid ah indhihiisa aad ku qurux badan, kuwaasoo jaallo ah, mararka qaarkoodna waxay isku beddelaan midabka oranjaha. Indhihiisana waa kuwo iftiin leh habeenkii, waana kuwa u muuqda nalalkii oo kale. Haddaan eegno midabkiisa, waa mid iskugu jira bunni iyo isku jir madow iyo caddaan. Shimbirka Tropigan. Shimbirkani asalkiisa wuxuu kasoo jeedaa dalal kala duwan sida Myanmar, Jeenaha iyo weliba Hindiya. Waana shimbir aad u qurux badan oo soo jiidasho leh. Markaan eegno midabkiisa, qaar ka mid ah jirkiisa waa midabka bunniga ah, madaxiisa hore iyo afkiisaba waa madow, dhuuntiisana waa mid buluug ah, wuxuuna leeyahay dhibco cadcad kuwaasoo ka muuqda jirkiisa. Waana shimbir aad u qurux badan. Shimbirka Visan Amheret. Shimbirkani waxaa lagu tilmaamaa shimbirada ugu quruxda badan ee caalamka, wuxuuna ku nool yahay Afrika, waxaana lagu tilmaamaa inuu yahay shimbirada halista ugu jira inuu dabar go'o. Shimbirkani waa mid soo jiidasho leh marka loo eego midabada qurux badan ee jirkiisa, waana mid iskugu jira madow iyo caddaan. Qayb kaloo ka mid ah jirkiisana waa mid guduud iyo jaallo ah. Waxaa kaloo kasii qurux badan seentiisa aad ku dheer. Haatanna waxaan soo gaarnay dhammaadka fiidiyoga. Haddii aad ka heshay muuqaalkan, like dheh. Haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo janalka subscribe dheh si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Intaan kulmi doono muuqaalkiisa kale, waxaan idin leeyahay maca assalaama.